sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa soo baxa sheekooyin xiiso leh oo la xiriira bisha Ramadaan. Sanadkan waxaa ka mid ah sheekooyinka la hadalhayo xildhibaan aan muslim ahayn oo go'aansaday in uu la soomo muslimiinta. dalka Ingiriiska xildhibaan ka tirsan baarlamaanka UK ayaa bilaabay tijaabo uu ku sameynayo sababta ay muslimiintu u soomaan, isaga oo sheegay inuu soomi doono asbuuca u horeeya bisha Ramadaan si uu u sahmiyo naxariista ay in badan oo muslimiinta ay ka sheegtaan bishan iyo waxa ka jira. xildhibaan Paul Bristow oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka UK ayaa muuqaal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in uu qaatay go'aankiisa oo ah in uu soomo asbuuca ugu horeeya Ramadaan uuna dhowri doono wax walba oo la faray. waxa uu yiri muslim ma ahi, laakiin waxaan rabaa in aan 20,000 oo muslimiin oo ku nool Peterborough in aan la qaybsado khibradda iyo dareenka si aan u ogaado waxa ay dareemayaan, waana fulin doonaa awaamirta la faray. mar uu la hadlayay muqbaahiyaha deegaankiisa ayuu sheegay in muslimiintu ay raacaan diintooda iyaga oo ka qaadanaya edeb, khushuuc, deeqsinimo iyo bixinta sadaqada oo ay siiyaan kuwa liita ee waqtigu uu ka hiiliyay. waana waxa qof walba oo naxariis leh uu jeclaan karo, ayuu hadalkiisa raaciyay. waxa uu sheegay inuu cashar ka baran doono inta lagu guda jiro bishan iyo waliba inuu baran doono naftiisa oo aan horay u baran in ay ka tagto cunada, qamriga, biyaha iyo wax walba oo ay jeceshahay. maalin walba waxa uu duubaa muuqaal uu ku falanqeynaya siday maalintiisu ahayd iyo waxa uu dareemay, khibradda uu ka qaatay iyo waliba waxa uu ku talinayo. xildhibaan Bristow ayaa dhanka kala sheegay inay tahay arrin aan si fudud loo qaadan karin soonka, haddana ay muujinayso shakhsiyadda aad tahay, isagu oo yiri waxaan rajaynayaa in kuwa badan oo anoo kala ay soo baxaan oo ay casharkan ila qaataan. tani waa layli aad ku sameynayso naftaada, ayuu hadalkiisa raaciyay. bisha Ramadaan ee sanadkan ayaa timid xilli caalamka uu faraba'an ku hayo cudurka coronavirus kaasoo dadka amraya in la kala fogaado, waana sababta qasabtay in sanadkan dadku ay guryahooda ku tukadaan. iyada oo taas laga duulayana golaha muslimiinta boqortooyada Ingiriiska ayaa daabacay tilmaamo loogu talagalay dadka muslimiinta ee UK inay raacaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan xilligan adag si loo badbaadiyo nafta dadka loogana dheeraado waxyeelo ka dhasha isku imaatinka. UK waxay ka mid tahay wadamada sida xawliga dadku u soo galaan diinta Islaamka, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay diinta ugu saameynta badan marka la fiiriyo dhinaca hadalhaynta, iyada oo sanad walba ay soo islaamaan kumanaan dad ah oo ku nool UK iyo nawaaxigeeda.